waxaa jirto 2010kii filim aan ka soo muuqday oo markaas loogu jilay Mombasa Kenya filimkaasi dad Chinese ayaa watay marka sida aniga la sheegay xogta waxay ahayd in oo dadka Chinese ka ah afduub loogu haystay gudaha Soomaaliya marka aniga qayb waxaan ku jiray oo ah in markaas ciidankii oo markaas mission fulinayeen inay markaas xaafadaha ay soo galaan dagaalka markay qaadayaan oo kale in aan sahmiyo aan sheego كذالوجيس كعمال كورتك والله horta dib badna ka soo marnay waxaan soo bilaabnay baxabta liidan ku bilaabnay budbuudka ka dambana waxa bilaabnay inaan bilaabno fiir iyo baraatikeeno fiir sugan aan isku dayno iyo akshamada filmaanta Bollywoodka qaar kamid ah in habeenkii clipna soo jarto aan xeebta la imaan markaasna aan isku dayo si markaas igu suurta gashay inaan akshinka toos u keeno adag tahay laakiin sidaasay taana waan isku daynaa waa hamigeena waan jecelnahay yaraanteena ilaa hadda ayaan jecelnahay waan ku daynaa filmaanta qaar in kasta ee akshimada qaar ee aad u adag yihiin inaan sameeyno inaan aktar caan ah oo la yaqaano inaan naqano wadankana waxa u tarnaa wax u qabano sida fanaaniinta caanta oo u yihiin oo kale loo yaqaano anagana in aan ugu soo muuqno baraha bulshada iyo TV-yaasha iyo tiyaatarada sida saaxiibkayga walaalkayga Cabdifatax Bulshaabi oo kale asay u dhiirgeliyo xataa marmar kharashkaas bixiyo muuqaal noocaas soo sameey muuqaal wadani soo sameey asay ma fahanti marka ilaa hadda taakulan buuxdo dawladda xageeda ama dad shacab xaqiis kama haysto laakiin balse awoodeeda isticmaalaa ilaa hadda